السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وسلامنتين أخياري ميل كستو الجوكتان أرضي عد كستا ساملي شركة شخصيات كان حسطو قف كستو أرنتان كفا إلي سنة برامج كان كجاه اللينا شرعية شركتها صوماليا وحن ما أنت مرينا توك السجالات وحكاه لي اسكو بيرد شركتها توك السجالات وحكبلو ذا مركب قضبك قنطنات وحنا كهذا اسكو بيرد sida aan sheegnay laba company oo kala madax banaan ayaa isku biiraya markaan afka qalaad iska reebno shirkad iyo in ka badan waa isku biiri karaan baalay si ay u abuuraan shirkad kale si waafaqsan sharcigan sida uu farayo ee qorshaha isku biirida shirkad iyo in ka badan waa ku biiri karaan baalay shirkado shisheeye oo la mid ah ama ka duwan shirkadaha isku biiraya si la mid ah ahna shirkad iyo in ka badan waa intay doonaan bay noqon karaan shirkadaha dalka si waafaqsan sharcigan sida uu farayo qorshaha isku biirida haddii isku biirida uusan diidanayn baa leeyahay erka shirkadda ama sharciga shirkadda ay leeyihiin مثل شركة هاواي أو كلا قاب كيودي سنتي وكدو يعني سيدا ودي سنتي شركة آبل شركة آبل شقاله هو شقاله لكن شركة هاواي شقاله يجا ملكي ليال dalalka shuuciga iyo dalalka Mareykanka iyo ku kala duwan yihiin iyo hanti wadaag iyo hanti goosiga iyo siyaasadka dalalkaas sida u shaqeeyaan bay shirkaduhu ku kala duwan yihiin shuruucda ka jirta sidaas la mid ah haddii isku biiradu uusan diidanayn baa la xeerka shirkadda ama sharciga shirkadaha shisheeye markaana shirkadaha shisheeye waa inay waafaqdo dhammaan shuruucda ku qoran sharciga sameynaya isku biirida oo ah ka Soomaaliya marka shirkad baa hooyo noqonaysa shirkadda kalena waxay noqonaysaa ilmihii ama way ka hoos shaqaynaysaa qaabka isku biirista waxaa la yiri waa in lagu dhigaa baa la yiri magaca shirkadda oo sax ah oo waafaqsan sharciga diiwaangelinta shirkadaha ee dalka magaca shirkadaha isku biiraya ay abuurayaan oo saxda ah iyo magaca shirkadihii isku biiray waa in intaaba la qoraa laba shirkadood baa isku biiray wax kale soo baxayaan مثلا هذا ميتا مقشان social media markii shirkadu ay iibsato shirkado kale magac kale cusub bay qaadataa laba shirkadood oo isku biirayana waxa laga yaabaa labadii shirkadood in shirkadba erey laga soo jaro oo ay macnay sameeyaan ama erey bixin cusub iyo magac bixin cusub loo sameeyo shuruudaha isku biirida oo ay ku jirto hanaanka iyo qaabka ay isku bedelayaan danaha iyo waajibaadka saamilayda mid kasta oo ka mid ah shirkadda isku biiray iyo kuwa soo haray lacagaha agabka kale iyo wax kasta oo haddii shirkada isgaarsiin ay isku biiraan saamiyadii iyo wixii oo dhan hantidii way isbedelaysaa haddii inta soo hartay ay weli ahaanayaan ama u taagnaanayaan qaar baa diidi kara bedelaada lagu sameeyo xeerka isku biiridda wuu taabanayaa baa leeyahay shirkadaha haray habdhaqankooda shirkaduhu marka waana isku biiri karaan waana kala furfuran karaan qodobka 52 baa ansixinta isku biiridda ka hadlaya waana in loo ansixiyo si waafaqsan qodobada xeerka shirkadaha ee la xiriira isku biiridda nooc kasta oo ay tahay waana inay noqotaa baa leeyahay shirkad hore u lahayd qorshe wax ku biirid haddii aan la marin baa leeyahay hab waafaqsan xeerka shirkadda ama aan lagu xusin xeerarkaas isku biiridda shirkadda iyo shirkado sharciyan cid kuma biiri karto haddii aysan jirin baa leeyahay qodobo sharci ah oo aan ogolayn isku biiridda shirkado la tilmaamay noocooda ama qaybtooda haddii midkood xeerka shirkadda iyo sharcigaba aan si cad u sheegin meel marinta isku biiridda waa in wax laga bedelaa xeerka shirkadda si loo waafajiyo qaabka qorshaha iyo isku biiridda iyo sharciga waa in la waafajiyaa waa inuu sharcigu ogolaadaa waxyaabaha diidaya sharciga waa in marka loo fariistaa loo codeeyaa wax ka bedel lagu sameeyaa haddii aan midkood xeerka shirkadda iyo sharciga uusan si cad u sheegin baa leeyahay isku biiridda iyo ansixinta wax ka bedelka xeerka shirkadda waxaa wada ogolaanaya isku biiridda iyo ansixinta dhammaan saamilayda shirkadda inta aan la dhaqan gelinna qorshaha isku biiridda waxaa jiraya talo soo jeedin la xiriirta oo uu qabo sharcigan lagana filayo inay waafaqaan xeerarka shirkadaha isku biiridda xeerarkaasoo si hordhac u sameeyeen maamulayaasha shirkaduhu una gudbiyeen ama u ogeysiyeen madaxdooda si loo helo kooram oo codayn kara ogolaanshaha saamilayda iyo ciddii kale ee dan ku leh shirkadda marka vote-kaas lagu kala adkaanaya qodobka 53 dhaqangalka isku biiridda shirkaduhu ka hadlaya
oo wuxuu leeyahay qodobka 52 oo shirkadaha iyo shirkaduhu ay yihiin kuwo qoraalkooda aasaaska iyo midkooda diiwaangelinta ay ka diiwaan gashan diiwaan hayaha shirkadaha soo haray waa in ay u gudbiyaan diiwaan hayaha si waafaqsan qodobka 13 ee sharciga isku biiridda leer u dhigay magaca marka shirkadda cusub oo saxda ah iyo shirkadaha isku biiray ciwaankooda xaruntooda dhexe dhammaan xeerarkooda gaarka ah ee lagu aasaasay iyo qaab dhismoodkooda shirkadda diiwaan hayay u gudbinayaan sida shirkad cusub oo la aasaasayo kale marka shirkadaha haray shirkaduhu waxay isugu biiraan ujeedooyin badan in suuqii laga qabsado iyana unitigii u arkaan faa'iido inay midba shirkadba meel ku fiican tahay inay bulshadii deegaankii midba meel xoog ku haysato oo ay kaga xoog badan tahay shirkadaha kale oo ay u baahan yihiin partners cusub istaraatiijiyad cusub maalgashi cusub isku biiridda shirkadaha waxaa keena iyaga oo developmentigii sida shirkadda Pansoni iyo Sony oo kale ay sameeyeen midba goonideeda u taagnay teknolojiyadu markay dhimanaysay ay haysteenna waxa way isku biireen marka shirkadaha haray ay lahayn magaca saxda ee shirkadaha haray waxa way ciwaankooda xaruntooda dhexe iyagana kulli waa la qorayaa magacii hore sida laga yeelayo lacag buu ku qiimeysan yahay haddii kale waxa waaye shirkadaha isku biiray iyo isku beddelka shirkadaha haray xiriirada isku biiridda kale iyo isku biiridda shirkadaha cusub iyo kuwii haray haddii shirkad xeerkoodu dhigayo qorshaha isku biiridda waa in wax laga bedela baa la yiri qoladii shirkadaha haray lagu diiwaangeliyey shirkadaha haray waa in la diiwaangeliyaa ayaga laftooda u baahan in sharcigooda wax laga bedelo waana inay diiwaan hayaha u gudbiyaan ayaga laftooda dokumentiga hore kuma shaqaynayaan dad baa ka baxay sharciyo badan baa isbedelay waxyaabo badan baa isbedelay waa inay samaystaan nidaam cusub marka la ogaado kadib shirkadaha isku biiraya kuwaas oo aan lahayn qoraal aasaas oo u diiwaan gashana shirkadaha haray waa inay u gudbiyaan diiwaan hayaha si loogu diiwaangeliyo isbedelkaas magaca saxda ee shirkadaha isku biiray xaruntooda dhexe shuruucdooda dhammaan karakterkooda businesskooda wax kasta oo iyaga la xiriira halkan laguma soo koobi karo magac shirkadeedka shirkadaha hare iyo ciwaankooda xarunta dhexe shirkad kasta waxay ku biirtay oo isku bedeshay shirkad hartay arrin kasta oo la xiriirta isku biiridda shirkadaha soo haray ee go'aansaday inay wax iyo kuwa ku biiray iyo kulli wax oo dhan haddii qorshaha isku biiriddu dhigaya baa leen in wax ka bedel lagu sameeyo qoraal loo diiwaangeliyey shirkad soo hartay waa inay keentaa qoraal wax ka bedel oo ku habboon ama mid kale oo sheegaya wax ka bedelka loona gudbiya diiwaan hayaha si uu u diiwaangeliyo si waafaqsan sharcigan isku biiriddu waxay dhaqan gal noqonaysaa baa leen sida ku xusan sharcigan haddii sharcigu uusan sheegin taariikhda dhaqan galka isku biiridda waxay dhaqan galaysaa waqtiga iyo taariikhda qoraalka isku biiridda uu dhaqan galo si waafaqsan qodobada sharcigan marka raadadka isku biiridda qodobka 54 baa ka hadla shirkadaha isku biiraya mid kasta waxa oo ka mid ah baa la yiri waxay ka mid noqonaysaa shirkad cusub jiritaankooda gaarka ahna waa dhamaanaya halkaas ku ekaanaya shirkadda Hormuud hadday shirkad ku biirto magaca shirkadda ay ku biirtay bay qaadanaysaa hadday Hawaii ku biirto hadday ku biirto shirkado kale caalami ah sida Safaricom ama Heer International ay u gudubto ama shirkadda Gols iyo shirkadda Hormuud ay hal magac isla qaataan waxaas oo dhan waxay noqonayaan ama Somtel iyo Hormuud oo kale ay hal magac isla qaataan furaha isbedelaya daatada isbedelaysa magacyada isbedelaya saamilayda isbedelaysa oo dhan waxay noqonayaan list cusub waxay si toos ah marka uga mid noqonayaan mulkiilayaasha shirkad cusub isku biiriddaas wax u dhimimaysa baa leeyahay mulkiyadii saamilayda iyo xuquuqdii deynlayaasha ciddii deyn ku lahayd waa ku leedahay marka laga reebo deymaha lagu leeyahay hanti gaar ahaaneed oo shirkad kasta oo ka mid ahayd marka shirkadaha isku biiray mid kasta waxay leedahay hantidii ay ku darsatay shirkadda cusub kana oo ay ku dhalatay isku biiridda waxa ma yeelaysa hantidaas si kasta oo loogu hayo dhammaan waajibaadka saarnaa mid kasta oo shirkadaha isku biiray ka mid ah waxaa la wareegaya shirkadda cusub oo bixinaysa ayagana ka xisaabtamaya sharciyan waajibaadkoodayna ka mid tahay si buuxdana loogu fulin karo sharcigan waayo isku biiriddu way ka duwan tahay wareejinta iyo idmasho mulkiile uu waajib saarnaa ka hor isku biiridda oo shirkadiisi ku biirtay baa la shirkad kale waajibkaas waa saarnaanaya
inkastoo shirkadaasi ku biirtay mid kale haddii aan heshiis ka hadlayo waajibkaasi uusan dhigayn heshiiskan cusub isku biiradda wixii ka horreeyay cid waliba inay mas-uuliyaddeeda si gaar ah u qaadayso haddii sidaas si ka duwan lagu sheegin baa xeerka shirkadaha ama sharciga waajibinayana shirkadaha wax ku biiraya loogama baahna in lagu sameeyo xisaab ganacsigooda ama gudasho waajib qaybin hanti isku biiradda looma qaadan kara baa la yidhi inay la mid tahay kala dirid ama lacagaynta hantida liquidation in lagu sameeyo wax ku biirtay haddii aan sidaas si ka duwan loogu sheegin baa la yidhi marka sharcigan qorshaha isku biiraddu ma ahan qaybsi faa'iido leeltir shirkadeed iyo qaybsi nooc kale oo ku salaysan baa la yidhi xaquuq qaybsi ku dhisan heshiis mudnaan gaara leh qodobka marka haddii alla idmo 55 shirkadaha shisheeye oo ka haray isku biiraddu ka hadlaya shirkadaha shisheeye marka si gaaraan uga hadlayna haddii alla idmo ayagu xaquuqaad gaaray leeyihiin iska ilaalin bay leeyihiin isku ilaalin bay leeyihiin waxay leeyihiin shuruuc badan marka raadadka isku biiraddan ku ekeenaynaa maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh